ولا ليال waxaynu baraarujin lahayn bariyahan dambe mushkilad ka socota caalamka islaamka oo ay inay tanaasuleen in badan oo kamid ah siiba wadamadii carabta iyo khaliijka oo ay ka tanaasuleen muqaddasaadkoodii oo ay iskala xidheen yahuudi oo la keenay wax la yiraahdo الدين الإبراهيمي الجديد دين لو بحيي دين عصوب dadka loo xayeysiinayo oo la yiraahdo diintii nabi ibraahim xiriirka noocaasa haddaad la yaabsantaa leedahay innaga maxay naga khuseeya waxba ka khuseeya wax weyn ummadda islaamku diinta islaamku way ka dhaxaysaa muqaddasaadkuna wuu ka dhaxeeyaa ilaalintooda la ilaaliyo waajib bay naga wada saaran dadka qaarkood baaba laga yaabaa inay u haystaan carabtu inay diinta inoo matalaan tallaabada carabta ay u arkaan inay diin tahay ama laguma dayan karaba waxaabaan maqlaya xildhibaanadeena qaar ka mid ahoo leh carabtuba yuhuudda way la xidheena innaguna aan la xidhanno waxay naga khuseeya hankeennu inuu gaadhsiisnaado han caalamiya inuu noqdo ummadaha walaalaheena haddaynaan waxu tari karaynin inaad ka xumaato wixii haystee dhiba inaad u ducayso mowqif wanaagsan iyo go'aan saxa inaad qaadato si aad ilaahay uga badbaado subxaanahu wa tacaala arrintaa markaynu ka hadlayno dhowr arrimood baynu xusi doonnaa ta u horraysaa waxa weeye diintan gaaladu hadda ay xayeysiinayeen yuhuud iyo reer galbeedku ee la yidhi waxaa lagaga maarmayaa diimihii kale wakhtigay soo bilaabantay maxaa se looga jeedaa maxaa loo adeegsadaa khatarse maxay leedahay saddexdaa qodob ayaynu isku wacyigelin doonnaa iyadooynu ognahay adduunyadii maanta in masale keliya lagu wada fadhiyo asbaxad qurfatan waaxida ay noqotay maqsin keliya oo la iswada arkayo la iswada gaadhayo diintan la leeyahay waa diintii nebi ibraahim oo waa la xayeysiinayaa oo waxaa lagu midaynayaa saddexdii diimood yuhuudiyadda kiristanka iyo islaamka waxay soo bilaabantay wixii 2000 ka dambeeyay fikradda iyada ah sirta ku jirta waxay tahay waa qodobka labaad in la lumiyo tadyiicul muqaddasaadka in faraha laga qaado oo la yiraahdo wuxuba waa isku mid waa saddex diimood oo ilaahay ka wada yimi ilaah kaliya baana la wada caabudaya maxaaba la isu haystaaba qudus saddexdeenuba waynu wada leenahay kuwa imika ayabaha loo daayo waa tahwiidul qudus in la yuhuudiyeeyo la yiraahdo kuwa imikaba ha iska joogaan si kuwa kalena ugu cibaadaystaan iyadoo aynu ogsoonahay inay ahayd qibladii dadka muslimiinta ah ee hore quraankana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlay siduu u karaameeyay goobtii nabi maxamed lagu casuumay inay ahayd sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu ghazawaadkiisa iyo futuuxaadkiisa iyo dagaaladiisa uu sii wada yurub ku wadayna meeluhu ku jahaysnaabay ka mid ahay inuu qudus xoreeyo laakiin ilaahay wuxuu ku guuleeyay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu iyo muslimiintii la socotay markii dambe haddana saliibiyiintu dib ay u qabsadeen nimankii macatabku dirirka ahaa ilaahay wuxuu ku guuleeyay Salaaxudiin al-Ayuubi weligoodba way tamaniyeen yuhuuddu inay qabsadaan waxay oran jireen haykal al-Sulaymaani ayaa halkaa ka samaysan yuhuudun nasaaraduna waxay oran jireen waa meeshii ciise uu ku dhashay kuna soo degi doono arinta sirta labaad ku jirta waxa weeye at-tadbiicu ma'a al-yahuud wa tazallufu ilayhim وخاصة حكام بعض الدول العربية إن يهود لا يسكو أرتسكريو لا يسكو دويو ولا لا صاحبه وإسلايهين ملاها قامنتي عالم كي هذا الدور وين كلي مركاسي أيدين كو كرديان مقع إيا منفع إيا منصب بلد يهود ما انت كاق هذا ما دام يوروبيا مريكا حنبارسين كراستا باطل ككفر إذا أنا مسلم ككاهي ستانا أيدين كو حيتشين كران سيدا درادت يهودنا مركا هشيس ودا قاران با وحكا لا يكسي الدران هذا مركي قدس لو دايه waxay ku hamiyayaan waxay oran jireen Israa'iil al-Kubra Israa'iil tii weynayd oo ay ku sheegaan inay min an-Niil ila Furaat ka bilaabmayso Niil oo Masar ila Furaat oo Ciraaq Mareykankuna hadda wuxuu la hadalhayaa inuu yiraahdo Turkiyana way ku jirtay ku darsada waxay bilaabeen imika daraasadahooda baarlamaanka laga ansixinayo ku soo jira sida macluumaadka Quraan ay sheegayaan inay u qaybiyeen dawladaha Islaamka magdhow ay weydiinayaan dawlad heblaayeen taasaanu magdhow ka rabnaa dawlad heblaayana inta markay tii hore u hirgeliyeen taasay soo bilaabeen midna Sacuudiga oo kale waxaanu ka rabnaa inaan 100 milyan oo dollar 100 bilyan macnaa 100 milyan oo dollar waxay xoolahaasi naga lumeen ama dadkaasina laga dilay laga soo bilaabo waqtigii nabi maxamed bayda sallallahu alayhi wasallam dagaaladii Khaybar iyo Bani Qurayda iyo ila Sacuudi Arabiya ku yaaleen dawladihiinuna waa isku mid idinkii aabayaashiin bay rasuuladiinuba wixii naga dishan hadda waanu rabnaa kala dacagteeda hoosteeda ku jirtaan
وديمها إمك الله هذا هي الله قيبنا سيدي شرم الكبد وقع عدسن شرين تدبو نقل هي دين تودي تدكن ينوحي مودا يعني بلانية عهدي إلا قلان يهودين يكون شوقيا إلهي إذا آذ وغرمي بلانت يهود وإن أنا هين من لسكوها لا يلا حساب طمع أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بلان كستي قلان تبدا كتوران بولاهي بقالدود waxay ليس علينا في الأميين السبيل ومدها أننا naga soo haray waxooda hadaan qaadano wadana lagu ciqaabo na lagu cadaababa ma jirto waa xalaal quraanka bay noo sheegayba arinta afraada ku jirta waxa weeye diin al-ibraahimi iyo la wadwado iyo isku dhaweynta yuhuuda tabdiilu diin al-hanif al-islami as-sahih wa tamyi'u diintan islaamka ay dadku ku dhageen in laga durkiyo iyo xajisashadeedii ودad badan oo caamaaba la helaya carooga xukuumadaha xooga badan ee afuufayaan dad baa dhageysta tabatana ummadu diintooda say ugu noolaayeen iyo siday u difaacayeen iyo say ugu adkaayeen dad baaba laga yaabaa inay yiraahdaan dekalkana bay ka soo dhawaatay mayn waxa la sheegaya rumaysan ilaahayna subhanahu wa ta'ala aad buu uga digay rasuulkuna aad buu uga digay arrimahaas oo kale الله وحول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا sanadkii ugu dambeeyay nabigu xajay markuu umada sagootay aada ilaahay uu ku soo dajiyay ilaahay uu leeyahay diintiina baa idin dhamaystiray waa nicmadii islaamkaas oo quraanaan raali uga noqday dadku inay ku dhaqmaan diin kale ma yaab nabi ibraahim ay ka been abuurteen ilaahay arrinkiisa uu ka warramay wuxuu ma kaana ibraahim yahuudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وحوي ku xoqan gaaladu nabi ibraahim mushrigna mu ahayn yahuudina mu ahayn muslim buha xaniif ودين الإسلام كذلك كهور كعية نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال المعلومة كمية ومدات بو وعدي مستقبل كودو ورمي قطبة قيرة لبو تشادي دردارا كان كتري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجي وحبا صوت الدولة يصوص عليه دين تيدا هي السنة إذا هيستو جوزك كوقنين أبو الرسول صلى الله عليه وسلم أرنتني يدا مرك الله وضوضا وحلوقت شيدا أرنت الشنادة تضييع حق الفلسطينيين وتخذيلهم وتهجيرهم ومدي ولا عليهنها الدلك الدجنا المقدسات كمسلمين توي لنا فلسطين إن شاء الله يتلقى قفص ذي ماشى مدة كوابنا سنة ذي مكلقت شوقت طبنا سنوات إن ماشى ولا قد دريريو وريه دينا للدميو تخذيلنا لقصة ما يقول له هوتشيو قضيات ضياضوا فلسطين بورنشنا عربي محانا قال إذا إلينا مك فلسطينية قو طلع ويقرد لين بين قاركودنا إلهي بيسقى كورما يا مسلمين تمرك قال نبقى قبصته وحاولوا وين استنصروكم في الدين فعليكم النصر دي ولا عليهم قيب كم إذا دبات قبصتي كل مدية قرقار دين ويديستان فعليكم النصر وحيد كوا شباب لهاي النصر وحي الله دقال ما يوحى هذا كمسلمين تاين إلا الظلمية دلكودي يددكود الله قبصده ولا الله يلا واحد قدبه ودين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلهي بأوحي سبحانه وتعالى وحى الله قال هذا ددك مسلمين تين يدقال ما دام لدلمية هداوه إليه وإذا أن إلهي نصر قود وكراه